بسم الله الرحمن الرحيم وهبينما إسنينه أو تلادة أي سو جريسو صدح هذا بشا نوفمبر سنة كلا بكون لباتن يشن أو كوبعجن لبية طبعا كبشة جماد الأول سنة كون أفر بقولها فرتنية تضبط تاريخ الهجرية كسو دوادا مركله يبرامج كي قبانها قضبض عاو أن إذا كوها إننا وحا كمدا إيران أو كل واقعي إن أي لسيسو سيديد حرمات أو نيوكلير أو عصب xilli Mareykanka iyo reer galbeedku culays ay ku saarayaan in ay joojiso gabi ahaanba barnaamijkeeda nuclearka. Trump oo muujiyay kalsooni inuu ku qabo in Sacuudigu uusan ku xiri doonin dhismaha dowlad Falastiiniyiin in xiriir uu la sameeyo Israa'iil. Ku dhawaad 10 qof oo dhimasho dhaawac uu ka soo gaaray duqeymo cusub oo Israa'iil ay ku qaaday dalka Lebanon. maleeshiyada RSF oo weeraro hor leh ku qaaday magaalooyin ku yaala dalka Suudaan iyadoo maanta maxkamadda dambiyada dagaalka ee ICC ay soo saartay in baaritaan ay ku sameynayso dambiyada dagaal ee ka dhacay Darfur gaar ahaan magaalada Al-Fashir. warar ku saabsan Gaza ayaan sidoo kale barnaamijka idinkugu haynaa. Turkiga oo sheegay in meel wanaagsan ay marayaan wadahadallada ku aadan in ciidamo caalami ah la geeyo marayka Gaza. sheekada ugu dambaysa ee barnaamijka aan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay dal Afrikaan ah oo in ka badan 10 milyan oo dollar ku bixinaya in xulkooda kubadda cagtu ay la ciyaaraan Messi iyo xulka Argentine. dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka qubanaha. Imara Luxury Homes dhismayaasha cusub ee Imara Luxury Homes waxay ka kooban yihiin 2 qol iyo fadhi, 3 qol iyo fadhi, 4 qol iyo fadhi iyo guryo duplex ah iyo kuwo penthouse ah. guri kasta waxa uu leeyahay qolkii shaqaalaha waxaana loo dhammaystiray wax kasta oo xaafad gaar ah ay u baahan tahay. waa 2 dhismo cusub oo labadaba gacanta lagu hayo dhawaana soo idlaan doona. dhismaha koowaad shirkadu waxay ka dhisaysaa xaafadda Parkland City Park Drive 6th Avenue waxaana ku dhow yahay isbitaalka Aga Khan. dhismaha labaadna waxa uu marayaa dabaqa koowaad waxaana ku yaala Kilimani wadada madaxtooyada ama State House-ka ee Deansbury Road. faahfaahin dheeriya la xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashada kaaga muuqda. ku soo dhawow xarunta caafimaadka ee Private Walk in Clinic. Private Walk in Clinic waa xarun caafimaad oo ay ka howlgalaan dhakhaatiir khubaro ah oo isugu jira Soomaali iyo ajnabi oo rag iyo dumar bale. xaruntu waxay dib u habayn iyo casriyeyn ku samaysay dhammaan adeegyada caafimaad ee ay bixiso. xaruntu waxay furan tahay 7 maalmood ee isbuuca. ballantana si fudud ayaad u qabsan kartaa adigoo isticmaalaya telefoon, fariin qoraal ah ama online. waana heli kartaa ballan dhakhtar isla maalintaas. xarunta Private Walk in Clinic waxa ay ku taallaa galbeedka magaalada London xaafadda caanka ee Shafar Bush. wixii faahfaahina kala xiriir lambarada emailka iyo baraha bulshada shaashada kaaga muuqda. xarunta barashada diinta islaamka ee casriga ah ee habka online-ka wax lagaga barto ee Tawfiiq Islamic Online waxay leedahay 3 qaybood oo kala ah. qaybta higaada oo loo diyaariyay muddo cayiman, qaybta xifdinta Quraanka Kariimka, qaybta barashada shareecada sida xadiiska, fiqiga, siirada, naxwaha, tafsiirka, Quraanka iyo caqiidada iyo wixii la mid ah. waxaana dugsiga kugu diyaara macallimiin rag iyo dumarba leh oo u tababaran maadooyinka ay dhigayaan. faahfaahin dheeriya la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqda. soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad ula socoto oo hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno. haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir oo aad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. caawa waxaynu ku bilaabaynaa colaadda waddanka Suudaan. sidaad kula socoteen wararka iyaga toddobaadkan dalkaasi Suudaan waxaa ka dhacay magaalada Al-Fashir xaalado adag oo lagu sifeeyay mahado iyo mashaqo kadib markii dad rayid ah lagu xasuuqay magaaladaasi. haddaba wararkii ugu dambeeyay ilo wareedyo ka tirsan maamulka Darfur ayaa u sheegay warbaahinta in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ciidamada gurmadka degdega ah ee loo yaqaan RSF ay beegsadeen deegaanka Tina ee waqooyiga Darfur. lama oga khasaaraha ka dhashay weerarkan uu ku soo aadaya xilli la sheegayo in dagaalka uu ka gudbayo gobolada Darfur una u tilaabayo gobolada dariska ah. war kale oo arrimahan la xiriira dhowr qof oo rayid ah ayaa lagu dilay duqeyn kale oo galabtay loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo RSF ay ku qaaday goob ay ka socotay tacsi oo ku taal tuulo 15 kilomitir u jirta magaalada Al Ubayd oo ah magaalada ugu weyn ee gobolka Kordofan. waxaa kaloo la soo tibiyay
weerar kale oo drones ah oo lagu qaaday magaalooyinka Al-Rahaat iyo Al-Ubayd ee isla gobolkaasi. afayeenka rasmiga ah ee maamulka Kordofan ayaa maanta war-saxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku yiri RSF waxay hubkooda ku jeediyeen shicibka ku nool tuulada Al-Liyab iyagoo ku duqeeyay diyaarada drone xilli dad ay ku sugnaayeen teendho barodiq tacsi ay ka socotay iyadoo weerarkan uu ku tilmaamay dambi cusub oo ku soo kordhay rikoorka ka dhanka shicibka rayidka geesta kale maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC ayaa daboolka ka qaaday in ay bilowday baaritaan ku saabsan dambiye culus oo ka dhacay magaalada Al-Fashir oo ah caasimadda gobolka waqooyiga Darfur ee galbeedka dalka Suudaan. dambiyada ka dhacay Al-Fashir waxay qayb ka yihiin qaab ballaaran oo rabshadaha oo ka jira Darfur tan iyo April 2023 ayaa lagu yiri bayaanka. waxaa xusid mudan in ciidamada gurmadka degdega ah ee RSF ee uu hogaamiyo Maxamed Xamdaan Dagalo ay la wareegeen magaalada Al-Fashir toddobaadkii hore taasi oo keentay barakac ballaaran oo dadka rayidka ah iyadoo hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa gargaarkuna ay ku eedeeyeen in maleeshiyadiisu ay geysteen xadgudubyo iyo dambiye arxan darro ah oo ka dhan shicibka. RSF waxay beenisay inay jiraan xadgudubyo ballaaran inkastoo ay qireen kuwa dhif ah iyagoo xusay in ay sameeyeen guddi baaritaan oo la sheegay in markaa loogu talagalay in lagu baaro ficilada halkaasi ka dhacay waa sida hadalka loo dhigay. وهجاج وركاس نتاس أي نكى جذبنا مركز وحين أجينا حاجة إيران iyadoo cadaadis weyn Mareykanka iyo reer galbeedku ay saarayaan xukuumadda Iran isla markaasna ay taagan tahay xiisada ku aadan barnaamijkeeda nuclearka ayaa imika dowladda waddanka Iran waxay shaaca ka qaaday dhismaha 8 xarumood oo hor leh oo nuclearka oo ay dhisayso. warbixin amuraha ku aadan waxaa soo jeedinaya wariyahayaga Cabdifataax Mawlid Xaaji Cabdi. madaxweyne ku-xigeenka Iran Maxamed Islaami ahna madaxa hay'adda tamarta nuclearka ee Iran AEOI ayaa sheegay in dhismaha 8 warshadood oo nuclear ah oo cusub oo la qorsheynayo in laga dhiso xeebaha koonfureed iyo waqooyi ee dalka iyadoo iskaashi lala sameynayo Ruushka ay hadda ku jirto anjadaha dowladda. hadalkan ayaa ka soo baxay kulan uu madaxweynaha Iran Mas'uud Pezeshkian la yeeshay maamulayaasha sare ee warshadaha nuclearka saacadihii la soo dhaafay kaas oo ka dhacay mid ka mid ah xarumaha hay'adda tamarta nuclearka halkaas oo lagu siiyay madaxweynaha warbixin ku saabsan horumaradii ugu dambeeyay ee warshadaha nuclearka dalka heerka wax soo saarka korontada nuclearka ee cutubka koowaad ee warshada Bushehr iyo xaaladda dhismaha cutubyada labaad iyo saddexaad ee goobtaas. Islaami ayaa sheegay in hay'addu ay dejisay hanaan lagu dedejinayo tilaabooyinka cilmi baarista iyo hirgelinta warshadaha iyo ganacsiga ee tiknoolajiyadda nuclearka si shacabka loogu soo dhaweeyo tamarta iyo tiknoolajiyadda nuclearka. isagoo hadalkiisa sii wata Islaami wuxuu tilmaamay in la diyaariyay khariidad waddo oo waqti dheer ah oo ku saabsan warshadaha tamarta nuclearka ilaa sanadka 2041 taas oo ay ka qayb qaateen khubaro iyo daneeyayaal kala duwan. wuxuu sharxay in uu yahay hadafka hay'adda in la soo saaro 20,000 megawatt oo koronto nuclear ah isagoo raaciyay waxaan diyaarinay habraacyada maaliyadeed iyo kuwa dhaqaale ee hirgelinta mashaariicdan si ay u noqdaan kuwa faa'iido maalgashi leh oo cad. madaxa hay'adda tamarta nuclearka ee Iran ayaa xusay in wajigii koowaad ee warshada nuclearka Bushehr ay shaqadiisu bilaabatay 2013 wuxuuna sheegay in heshiiska cusub ee Ruushka la galay uu ku jiro dhismaha 4 warshadood oo Bushehr ka mid ah iyo 4 kale oo laga dhisi doono meelo kale oo mustaqbalka la go'aamin doono isagoo raaciyay in dhismaha warshado ku baahsan dalka oo dhan ay xaqiijin doonaan tamar nadiif ah oo waarta. Islaami wuxuu xaqiijiyay in mashaariicda warshadaha nuclearka ay sidoo kale ku jiri doonaan dhismaha warshado biyaha badda sifeeya si loo helo biyo la cabi karo oo dadka deegaanka la gaarsiiyo. waxaana uu xusay in warshada sifeysa biyaha ee Bushehr ay bilaabi doonto shaqadeeda sanadka soo socda iyadoo awood u leh soo saaris 70,000 mitir cubic oo biyo ah. Islaami wuxuu intaas ku daray in muhiimad weyn la siinayo horumarinta mashaariicda nuclearka ee dhinacyada caafimaadka, amniga cuntada, warshadaha iyo deegaanka wuxuuna tilmaamay fursadaha waaweyn ee ka jira tiknoolajiyadda laserka iyo fiyoosinta nuclearka isagoo adkeeyay inay tahay tiknoolajiyad aad muhiim u ah oo kor u qaadaysa martabada cilmiga Iran isla markaana ka ilaalin doonta faragelinta galbeedka ee mustaqbalka.
عبد الفتاح مريد حاج عبدي HBN Online TV. waatahay cabdifataax aad buu mahadsan yahay oo warbixintaasi inoo soo gudbinayay daawadayaal goordhow waxaan u gudbaynaa wararkii ugu dambeeyay ee Gaza Turkiga oo ka hadlay qorshaha lagu doonayo in ciidamo caalami ah lagu geeyo maraykanka Gaza Donald Trump oo rajeynaya in Sacuudiga uusan ku xirayn shuruud ah dhismaha dowlad Falastiiniya xiriir inuu la sameeyo Israa'iil iyo sheekada ugu dambaysa oo ku aadan wadan Afrika ku yaal oo in ka badan $10 milyan oo dollar ku bixinaya sidii xulka kubadda cagta ee wadankaasi ay ula ciyaari lahaayeen Messi iyo ciyaartoyda kale ee xulka qaranka ee Argentina hadalhayn iyo dood adag ay arrintan dhalisay intaan u gudbin wararkaasi iyo qodobo kale aan ku hakan qadar xayeysiina haddii aad ubadkaaga aqoon sare la jeclaatid halkaad aadi lahayd iyo kana waa American International High School ee ilmaha haatan u geyso oo aqoonta Kamal American International High School farciisa Nairobi waxa uu kugu bishaaraynayaa inuu ku hayo waxbarasho heer caalami ah oo aad qaadanayso shahaado la aqoonsan yahay isla markaana casharrada lagu bixinayo nidaamka waxbarashada Mareykanka haddii aad ka soo guurtay qurbaha ama aad la doonayso waxbarasho tayo wanaagsan carruurtaada American International High School waxa uu ku diyaariyay waxbarashada dugsiga sare waxa uu iskuulkan wada shaqayn la leeyahay hay'adaha waxbarashada Mareykanka iskuulku waxa uu ku yaalaa xaafadda Westland ee magaalada Nairobi wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada iyo shashada kaaga muuqda wargelin muhiim ah ma doonaysaa in laga cimriyo waalidiintaada oo dhintay ama sariiryaal ah wax ka yar $300 ayaa lagaga cumraynayaa waalidkaaga shirkadda Altaqwa ayaa kuu samaysay qiimo dhimis waxa lagu soo duubayaa muuqaalo ku saabsan qaabka cumrada ay u dhacday haddaba wixii faahfaahin kala xiriir shirkadda Altaqwa Hajj and Umrah nambarka shaashada kaaga muuqda shirkadda Easygo Travel waxay idin haysaa tigidhada xajka iyo cumrada iyo tigidhada safarada kale ee caadiga ah Easygo waxay wakiil uga tahay UK iyo Yurubta kalaba shirkadda adeegyada xajka iyo cumrada ee Al Raajihi ee Sacuudi Arabiya Easygo mar walba waxaad ka helaysaa adeeg iyo qancin macmiil oo ku raali geliya hamoogaan ee la xiriir Easygo Travel adigoo la xiriiraya telefoonada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda soo dhawaada marka la daawadaya wali waxaad la socotaan barnaamijkii qobanaha oo toos idin kaga imaanaya stuudiyaha iyaga koowaad barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka. Warbixino qoraal ah, warar, faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan bogga internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. Ku xirnaa HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka. Waxaa xagga qasa aynu eegno iyadoo weli lagu jiro xabad joojin si hadalka loo dhigay ayaa haddana Israa'iil waxay sii wadaa weerarada ka dhanka ah heshiiskaasi xabad joojinta gordhaweyto ee weerarada Falastiiniyiinta ayaa sheegaya in ciidamada Israa'iil bariga magaalada Gaza ay ku qaadeen weerar dhinaca kale waxaa socota dood adag oo dhanka Mareykanka iyo Israa'iil u dhaxaysa oo ku aadan in dagaalamayaal ka tirsan iska caabinta Falastiiniyiinta oo ku sugan godadka dhulka hoostiisa ee aaga jaalaha ciidanka Israa'iil ku sugan yihiin in halkaas ay ka baxaan qaar ka mid ah wasiirada Israa'iil ayaa diidan in dagaalyahanada halkaas ay ka baxaan oo loo ogolaado in halkaas ay ka baxaan oo ay u gudbaan dhanka kale ee Mareykanka Gaza oo Israa'iil aysan gacanta ku hayn dood adag ayaa socota arrintan wuxuu ku soo kornaa waardii soo gudbin doonaa waayahay arrimaha la xiriira ciidamada caalamiga ah ee la doonaya Mareykanka Gaza in la geeyo aynu ku sii soconay wararka la xiriira wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Hakan Fidan ayaa farta ku fiiqay in wada xaajoodka ku saabsan dirista ciidamo military oo qaramada midoobay ay maamulayso oo la geeyo gudaha Gaza ay socdaan isagoo tilmaamay in Turkigu diyaar u yahay mas'uuliyad kasta oo looga baahan yahay balse ay sugayaan sharciyada iyo qeexitaanka laga maarmaanka u ah ciidamada caynkaasi ah Fidan waxa kale oo uu carabka ku adkeeyay in yoolka koowaad uu yahay in sidoo dhaqsiyaha badan loo joojiyo silaca iyo dilka ka socda Gaza isagoo intaas ku daray inaysan jirin cid rabta inay aragto ciidamada nabad ilaalin ah oo ka howlgalaya Gaza wasiirka ayaa waxa uu sheegay in go'aanka Turkiga ee ku saabsan ka qaybgalka ciidanka caalamiga ee xasilinta Gaza ku xirnaan doono